بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. آد ما سنتين بعض صحافة إيصاب وقتي وأنا دي ما هدعلنا يا تيفيدين يا إمام الكينولن وحان روا ونسكين يا رمانتا إن كهالله هذا كسوي حلبان صاحبك يا حلبان فدرال كا وأن أركي متكو سليسن عنفي iyo dad nacayb gaar ah oo dad gaar ah soo qabo runtii walaalkay xildhibaan Idris Takhtar anoo hadalkiisa daba socdo waxaan ka raali gareynayaa shacabka Soomaaliyeed ee dhagahooda ay ku dhaceen hadalladaas aan mas'uuliyadda ku saleysnayn ee uu uga hadlayay shabeellada hoose ummad badan iyo qowmiyad badan ku nool waa meel dalkeena meesha uu shacbiyad iyo dad badan waaye in maanta uu yiraahdo muxuu ahay shanta caleemood bas aha degan runtii aad iyo aad wax looga xumaado waaye waxaan ogsoonahay oo aad uga hadlay meesha la yiraahdo leega iyo cigeelhooley horta markuu horeysa leega iyo cigeelhooley isku meel ma aha leega waa magaalada cigeelhooleyna magaalada u dhawaayo oo wara ah waxaan rabaa haddii walaalkay oo dadka degan asna u aqoonsaneen dee dadka la soo raray hadda jiyo reerka oo ignoreynaayo oo leeyahay ma degano qabiil kale oo shanta caleemood la yiraahdo degan oo leeyahay waxaan u sheegayaa waxay degan yihiin goobaan leh waxay degan yihiin meesha dhulka astilmaamiye leega iyo cigeelhooley waxay degan yihiin yaaqbari weyn waxay degan yihiin meesha la yiraahdo muxuu ahay kabharag waxay degan yihiin yaaqdoomaar waxay degan yihiin muxuu ahay dhul badan oo ka tirsan balad amiin dhul badan oo shabeellada hoose ka tirsan ay degan yihiin waana dad aad loogu yaqaano caanaha uu sheegayo loo caanan doono jiray uu sheegayo dawladdii muxuu ahay qabiil uu ka dhawaajiyay Mariixaan waaye uu leeyahay dawladdii Maxamed Siyaad boqortooy ma ahayn dawladdii burburtay dalka uu leeyahay muxuu ahay way caanan doono jirtay caanaha dameer laga mas'uulisaynin doorana laga mas'uulisaynin geela laga soo lisay dadkiis Ilaahay ku makaaneeyay ee geelaas iyo xoolahaas lahaa ayaa walaal degan xildhibaan baa tahay boog ayaad dhiminaysaa boogta aad dhiminaysa iska daa dadka u kala xaqsoor xildhibaan federaal oo qaran aad tahay ma ihid xildhibaan dawlad goboleed xataa ma ihid walaalle anigu ma ku necbi markaan saas ku leeyahay adiga baan ku nasteexayna shacabka Soomaaliyeed ee muxuu ahay arintaas tabashada ka muujiyeen waan ka raali gareynayaa qofka mar bay qadaf ka dhici kartaa waxa aan leeyahay waxay tahay nin aqoon-yahana oo aan aad u jeclahay saaxiibna aan baarmaan ku nahay tahay iska ilaali waxyaabaha muxuu ahay walaalkeeyo qadafka ee dadka kala geyn karo dadkeena inay u sii yimaadinaan rabnaa inay wax wada qabsadaan rabnaa kii geelle iyo kii dameerle iyo kii doorole iyo kii beerle inay wax wada qabsadaan rabnaa ma rabno in dadkeena la kala irreeyo in hadallo xun loo kala sheego way dhamaatay xilligii burburka xilligii dhuluusu sheegan jiray xilligii muxuu ahay hogaamiye kooxeedidu way dhamaatay Idris walaalkay xildhibaankayga saaxiibkayga waxaad moodaa hadalladaada markii aan fiiriyo ninka soo daahay burburkii iyo dalkii wixii ka dhacay 91 ilaa iyo burburkii xoog badan lahay ninka soo daahay oo meel ugu maqnaayad u egtahay dadka uu sokeen dadka ha kala irdeynin aad iyo aad baad u mahadsantahay walaalkay aan jeclahay tahay intaas inaan ku dhaafo mar rabo aad iyo aad baad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.